islaamku muxuu tala iyo tilmaan iyo toosin sidee buu cabiray ama u sheegay ama adaab muxuu u dhigay ugu horeyn qofku marka uu dadka la talinayo waxa haboon ama culimaha ahaada ama aqil ikhlaas inuu yahay ikhlaas taladiisu ay ku salaysan tahay niyad samaan iyo daacadnimo oo wixii uu sheegay ilaahay daraadii ula jeedo waayo xaq ay isku leeyihiin way dadka muslimiintu inay istoosiyaan oo isla taliyaan rasuulada ilaahay wuxuu quraanku ka sheegay mid waliba waxa uu leeyahay wa ana lakum naasihun amiin anu waxaan ahay mid idin danaynaya oo amaanana leh khiyaamo uma jeedo kelmadda qofku uu sheegaya nasiixadaba markay ka tahay dadka way saamaysaa way u soo joogsadaan waxay arkaan inaan waxba uga jeedin marka qabuulkeeda dhawaada وهي كلمة حية من قلب حي تؤثر القلوب marka waa kelmad qalbi nool ka soo baxayso dadka saameynaysa sidoo ilaahay bay yiri inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin arinta balabaad waxa way at-ta'akkud min sihhati al-amr al-mansuh bih wixii dadka lagala talinaya wax jireen u yahay oo xaqiiqo ah sugan oo kuteen iyo dacaayadaan wahayn nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam kafaa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami' qofka waxa dambi ugu filan wixii uu maqlayba inuu sheego ee wareegaya marka waxa saa jira ee aan iska dayn waxa saa laga tagay hal la sameeyo waa inuu war sugan yahay arinta saddexaad waxa weeye ikhtiyaaru alwaqti almunaasib walmakaan almunaasib waljawi almunaasib cida loo naseexaynayo goobta iyo waqtiga iyo jawiga in loo eego oo xaaladu way kala duwan yihiin waqti uu qofkani taladan iyo naseexadan qaadan kara iyo xaalad wanaagsan in la eegto ila waa wax loogu danaynayo qofkii oo lagu daweynayo arinta afraad waxa weeye intiqaa'ul kalimaat erayada in la kala doorto kolba qofku erayga sida uu yiraahdaa ku xidhantay dhinaca xunna wuu ka abaari karaa dhinaca wanaagsanna wuu ka abaari karaa ilaahay baa wuxuu yiri waqulu lin-naasi husna dadka hadal wanaagsan ku dhaha waqul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu baynahum nabi maxamed oo adoomahayga waxaad ku tiraahdaa erayga wanaagsan doorta erayga wanaaga badan waayo eraygaas uu shaydaanku qalloociya ka faa'iideystaa marka Soomaalidu waxay yiraahdaan inanta iyadu uur bay leedahay iyo way dhalaysaa way kala duwan uur bay leedayna dadka loo isticmaalaa way dhalaysaana xoolaha loo isticmaalaa marka wixii xoolaha loo isticmaalay hadii dadka lagu isticmaalo qalad baa ka muuqanaya iyadoo xamliga iyo uurku kuleyba wax jira u yahay marka kelmadda ficil sida loo yiraahdo iyo sida loo cabiro iyo xataa jawiga qofka ka muuqanaya saameyn bay ku yeelan karaan marka in qofkani kelmadan si daacadnimo uu yiro dadka u danaynaya waa inay ka muuqanaysa arinta shanaad waxa way idhaarul wudd wal hubb lil mansuh qofku marka uu dadka wuxuu sheegayo in aanu fadaaxadeynayna iyaga uu danaynayo oo badbaadadooda uu ka shaqeynayo waa inuu muujiyaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa marka uu la hadlayo waxa uu muujinaya jacayl ee uu danaynayo tusaale mucaad ibn jabal buu maalmaha kamida gacantu qabtay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu yiri inni uhibbuk wa inni usiik waan ku jecelahay mucaadow waana ku dardaarmaya salaad walba marka aad dhamayso ha ka tagin inaad tiraahdo allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati taabacanaheedu waxa weeye qowl iyo ficil ba nabigu asxaabigan inuu u danaynayo oo la talinayo oo uu toosinayo u tilmaamay isagoo gacantiisa shariifka ana ku qabtay kuna yiri waan ku jecelahay qodobka lixaad an takuna an-nasihatu sirra nasihadu waa inay sir tahay oo qofkan si hoose loogu sheegaa oo loogu daneeyaa imaam shaafici rahimahullah waxa uu leeyahay ta'ammadni nasihataka fi infiradi wajannibni an-nasihata fi al-jamaa'a fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbikh la arda istimaa'a warniyo markaad ila talinayso bal si gooniyo gaara ila ogow waxaanaad iga daysaa dadka dhexdooda inaad igula taliso oo xiigu sheegto
dadka dhexdooda oo qofka wax loogu sheegaa waa fadeexad buu leeyahay imaamu shaafici aniguna taa ma dhagaysan karayo haddii ay laba gaari kari waayo ciddii loo naseexaynayey oo si calaniyahoo guud fagaaraa looga naseexaynayana iyadoo aadaabtaa kala wadata haddana waxaa la isticmaalayaa hadyigii nebiga ahaa maa baalu aqwaamin dadka qaarkood baa waxaa sameeya dadka qaarkood baa waxaa ku tallaabsaday waxaa diintu ma ogola si caama hadyigii nebiga ahayd calayhi salaatu wasalaam taas si uu qofku arrintaa isaga dhex arko iyada oo aan arrinkuna u muuqanin in isaga la ataagayo la fadeexadaynayo arrinta toddobaad waxa weeyaan ashcir ilmansuuxa bitaqdiirika liduruufi qofkan isagaad u naseexaynayso haddii duruuf gaari haysato u sheeg inaad qadarinayso duruuftaasi way ku haysataa waan ogahay waxaa laga yaabaa inay waxaasi kugu kalifeen laakinahu laa yakuunu mubariran laka arrintaa sharci ahaan kuma noqonayso wax ku hirgeliya ama kuu xalaaleeya qofkii waxa uu ku doodayana waa in iyadana laga qanciyaa qodobka saddexaad laa tuxawil النصيحة إلى جدال عقيم ومناقشة عدائية نصيحة وأنا نقول ضاد يمرن يتشافى شرق عداوة كانت لأن النصيحة ليس فيها إلزام وحكى لشرق قرار يحكم لفولية النصيحة ترى ذا مركز لقدمه قفك حق الله عدايو إن لا سي مرمو لسي فوقي أو لغو قصبه متى الله waana ta ay Soomaalidu yiraahdaan xaq sheeg baa la yiraahdaa ku dirir lama oran kol hadii xaq u cadaado qasab ku qaada iyo sanka in laga galiyo taasi waxay u taalaa dadka suldada ee mas'uuliyiinta ee xilka haya ayaa markay dadka la taliyaan ay u naseexeeyaan cidii qaladka deen weyda waa inay talaabo ka qaadaan laakiin qofka naasixa ah ee isagu umada la talinaya taladii markuu cadeeyo sida ugu waafisan u soo bandhigo aadaabta ay leedahay عدي قادم ويده إلهي باك لا حسابتما سبحانه وتعالى إلهي نوح النبي يقول إن عليك إلا البلاغ رسول الله بدوش هذا وحصارا إن أدتك قارسي صدو عديس كل هدي هذا وحقي هذا عديس حلك أقواد قدت إنت السقالك الرموت وحصير راعي يستيد الرموت الدعاء للمنصوح قفكي للا ليني وحلو شيء يعدوا دون يبها هذا إن لو دعيه ilaa adu xaq baad baadi doonaysa inuu toosnaadaba dooni ayaa doonaysa hadduu soo yara taagan yahay dadaalka aad samaysay ducana u raaci oo ilaahay u bari subxaana wa tacaala ilaahay u madaxda hanuuni ilaahay u shacabka hanuuni ilaahay u ubadka iyo hagaaji ilaahay asxaabta iyo hagaaji kulba cidda aad la talinayso waa inaad ducana u raaciso aanad habaar u raacin sagaalkaasoo aadaabtii qofkii naseexaynaya waxaa sii raaca afar ka mida qofka lala talinayo ama wax loo sheegayo ama loo danaynayo aadaabtiisa waxa ugu muhiimsan afar arrimood haddii qofkii waxa uu ku qaldamay loo sheegay madax iyo raciyad midku doonaya ha ahaado la isku day in la saxo wax loo cadeeyay isagana afar arrimood baa la gudban ta u horeysa waxa weeye xusnul istimaac dhageysi wanaagsan horta haddii si guud loogu sheegay iyo haddii si gaar loogu sheegayba dhageysi wanaagsan qofkani bicayn الاعتبار si wanaagsan waa inuu u dhageystaa ilaahayna wuu ammaanay dadka waxa wanaagsan marka la sheego dhageysanaya ama warka intay dhageystaan kiisa fiican raacaya alladina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsana wuxuu ilaahay ku ammaanay muuminiinta inay yihiin warka la sheegay dhageystaan kiisa wanaagsanna way raacaan adaabta labaad laga rabo qofkii loo danaynayo waxa weeye qabuulul xaqi wa cadamul cinaad inuu qofkii xaqii markuu arka aqbalaa oo aanu canaatamin canaadka wax kastaaba ku kalifaan canaad waa inaanu xaq kala hor imanin hadduu canaad kala hor yimaadana waa cudurka ay qabaan munaafiqiintu ilaahay uu ku eedeeyay fi suurati al-baqara ilaahay wuxuu ka warramay nin munaafiq oo marka la waaniyo wax loo sheego ka hor iman jiray alla wuxuu wa idha qila lahu ittaqillaha akhadatu al-'izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sa al-mihad marka la yiraahdo war ilaahay ka cabsi hebelow war waxa iska daa wadada iyo dalba wad kharibaysaa ka daa akhadatu al-'izzatu bil-ithm ficiltankiisu markaa dembiga inuu sii kordhiyo abu ku kalifi jiray naarta jahannam baa u diyaaraba ilaahay subhanahu wa ta'ala gogol halkaas saaxun asxaabigi qiimaha badnaa Abdullah ibn Mas'ud waxa uu yiri kafaa bir-rajuli ithman idha qila lahu ittaqillaha an yaqula ittaqi bi nafsik
aw calayka binafsik dadka qofka dembi waxa ugu filan marka ilaahay lagu waaniyo ilaahay la xusuusiyo war ilaahay ka cabso in jawaabtiisu ay noqoto waar adigu taada lagu xil saaray naftaada maaree oo aniga tayada waxba kaama khuseeyaane adeertaada u tali inuu taa yidhaahdo intaasaaba dembi ugu filan oo ciddii talada wanaagsan u soo jeedisay waa aqbali waayo arrinta saddexaad la gudbane waxa weeye shukru naasix qofkaasi markuu talo wanaagsan soo jeediyo cidda taladaa iska dhex aragta hadday aragto waxa inay ku jirto waa inay u mahadnaqaan laa yashkur illaaha man laa yashkur innaas buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dadka uma mahadnaqo ilaahay uma mahadnaqo qofkaan dadka u mahadnaqin waxyaabaha loogu mahadnaqayana waxaa ka mid a talada wanaagsan inuu idhaahdo waad mahadsan tahay warkaagaasi macquul buu ahaa waxba ugamaad jeedina ilaahay daraaddii buu ka ahaa waanaan kugu mahadnaqayaa waanaan aqbalay cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu waxau ihi axabu nnaasi ilaya man ahdaa ilaya cayba dadka waxaan ugu jecelahay ceebaan leeyahay qofka i caddeeya anigu ma eego wuxuu yahay iyo xaaladdiise waxaan u fahmaa inay tahay xigmad sidaa daraaddeedna waan ka qaataa buu ceebtaydaana waan saxaa waan suubiyaa qodobka afraada looga baahan yahay qofkan lala taliyey ama culimo iyo cuquul cid kastaaba warkaa ha soo jeedisee wax wanaagsan loo sheegay waxa weeye cadamu tabriiri albaatili wa labsihi bilxaq inaanu baadilkiisa iyo xumaantaa uu sameeyey macaanaynin qiilalu raadinin isagoo lagaba yaaba marka horeba inuu diidanaa gadaal inaanu suubin oo aanu sallixin oo qiil wanaagsan aanu raadinin oo aanu xaq iyo baadilkii isku darin in qofka muslimka ahay xaq iyo baadilkii uu isku daray isagoo garanayana ilaahay uu ku eedeeyey subxaana wa tacaala walaa talbisu alxaqa bilbaatil wataktumu alxaqa wa antum taclamuun ilaahay baa wuxuu leeyahay xaq iyo baadilka ha isku darin ha isu egeysiinina way kala cadyi idinkoo garanaya xaqa ha qarinina baa ilaahay uu leeyahay walxaqu axaqu an yuqaal walxaqu axaqu an yutabac xaqii kol haddii la sheegay oo qofkii u muuqday waanu isaguna idhaahdaa in la raaco iyo in la qaato intaba wuu istaahilaa afartaa arrimoodna waxaa looga baahan yahay qofka mansuuxa ah almansuuxu lahu ee lala talinayo marka haddii labadii dhinacba sidaa ay u dhaqmaan toosinta iyo talada iyo tilmaanta wanaagsan baa imanaya waxaana muhiima runtii in la kala fahmo dadku markay hadlayaan qof waxaa laga yaabaa in magaciisa la yidhaahdo waa mucaarid qofna waa muxaafid labadaa waxaa u dhexeeya qof munaasix ah qofka muxaafidku waa laga yaabaa waxa lagu haysta inuu isagu hayo oo shaygiisa uu suubiyo oo isaga iyo ciddii taageerayaashiisahay laga yaabo ay ku eegaan waxa loo yaqaano bicayni ridaa isha raalli noqoshaha qofka mucaaridkuna waxaa laga yaabaa waxa la isku haysta inuu ku eego bicayni sukhti isha cadhada wa caynu ridaa can kulli caybin kaliilatun kamaa ana cayna sukhti tubdi lmasaawiya labadoodaasi waa laga yaabaa mid waliba inuu xadgudub sameeyo laakiin qofka labadaa u dhexeeya waa naasix ee waxa la isku haysta isagu ka madax bannaan ama toosintiisa jecel munaasix baa la idhaahdaa munaasixana isha uu ku eegaya waa bicayni اlictibaar inuu wixii qiimeeyo toosiyana marka aadaabtaasaa laynooga baahan yahay inaynu ku dhaqanno islaamkuna ayna farayaa xadgudub iyo gaboodfal midna looma baahna xaquna waa inuu caddaado aan la diidinna sida ugu fiicanna loo soo bandhigo lana ogaado dawadii dadka inay tahay